السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu caawa halkan ku falanqeyn doonaa hadduu ilaa yiraahdo liis yar aan u sameeyey iskool inkastoo hadda iskoolka magaciisa aanan cadeynin. waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaa yiraahdo sida loo sameeyo liiska lacag qabashada, weliba kan ugu fudud waa mid diyaarsan waaye, keliya waxyaaba qaar uu kaaga baahanaa sida serial numberkan isagaa wadayo. Serial numberka asalkiisa waxaa loogu talagalay lacagaha maxaa la yiraahdaa boonada aad jaraysa loogu talagalay, laakiin hadda anu boono weli muusan isticmaalin iskuulkaasi. waxaan u sameeyey kow aan kaga bilaabay, marka dhib ma lahan 010 waxaasaa laga rabay, laakiin weli maanan u barin. dhib ma lahan. marka magac qorto, magac marka halkan ku qorto waxaa la rabaa lambarka inuu soo boodo keligii inuu yahay. sidoo kale markaa kasoo gudubta ka labaad aa qorto ka gudubta haddana lambar laba inuu keligii is qoro, macnaha 1 2 3 4 5 6 saa inuu usii wado. tusaalahaan hadda haddii aan magac cusub diiwaan geliyo, arday cusub haddaan kusoo daro sida cabdikariin axmed bare oo kale, cabdikariin axmed bare oo kale ayaa soo zaaidiyey. tab markaan dhaho isla markii waa kan meesha number 5 ay soo gashay. yaa ka mas-uul ah, qofka mas-uulka ah hadaa la rabaa inaad qorto. waxaa ka mas-uul ah masar axmed bare ayaa ka mas-uul ah. waayahay telephone numberka adiga laga rabaa sidoo kale inaad qorto 88. laakiin hadduu xogta hore usii kaydsanaan lahayd oo kale waa la heli lahaa, laakiin hadda maadaama iskuulku cusub yahay noo ku qasbantaha waxyaabaha qaarkood inaad qorto. tab dheh. halkan marka waxaa kugu diyaarsan fasalada ardayga uu noqon karo. koowaad inta badan waa free, labaad ay ka bilaabataa lacagta, saddexaad, afraad, shanaad, lixaad, toddobaad, sideedaad iyo intaan mid kamid ah dooranaysa ardaygan lacagta boonada u jaraysid, macnaha intan mid kamid ah dooranaysaa. mid marka aad doorato isla markii halkan lacagtii kaaga soo boodaysa ardaydaas laga rabay sida khaaska looga baahnaa, isagaa calculate garaynayo uu kuusoo qabanaya. markuu lacag inta kugu soo qabto isla markii wuxuu sidoo kale qoraal kusoo qaban doonaa halkan oo ah qofka haddii lacag ay kusoo hartay oo kale. waa qasab qofka lacagta laga rabaa qoran waxba muusan bixin, haraa lagu leeyahay soo maaha. intaa noo hartay inta waxay sheegaysaa tirada inta ku qoran ma lacag lagu leeyahayba, ma lacag dhamaystiran ba ardayga waxba laguma laha. haddii 0 meesha soo baxdo ay dhamaystiran tahay lacagta wax loogama baahnaba, ardaygaas wixiisa uu dhamaystirtay. minus aa ku yaala oo kale meesha sida kan oo kale -2 oo kale lacag ku dhiman waaye. +3 waa markaan ardayga sida inta nooga muuqata $12 aa laga rabay, $15 uu bixiyey. idan marka lacag u taal ninkaas $3 baaqi waa soo maha, waata intay ku qoran tahay lacag u taalo waa $3. hadda inta ku arki doonaa. idan marka waxaan diiwaan gelinay cabdikariin axmed bare, kasoo qaad inuu yahay fasalka labaad oo kale inuu yahay kasoo qaad. inta maxaa kasoo baxay labaadka $10 aa looga baahan yahay, inta $10 way ku dhiman tahay. intaanoo cadaynaysa sida halkan ka muuqato oo kale. waayahay anuu waxaan ka qaaday ardaygan meeshii $10 laga rabay $1 iga reebtay $9 aan ka qaaday tusaale ahaan. tab dhe markaa inta maxay isku bedeshay $10 $1 oo minus isku bedeshay. halkaas dollar waa maxay? waa lacag ku dhiman. aan ku noqdo ardaygan meesha $10 laga rabay wuxuu dhiibay tusaale ahaan $16 oo kale dhiibay. tab dheh maxaa soo bixi doona $6 oo nadiif ah. $6 maxay tahay meesha ku qoran waa lacag u taala ardaygaas, macnaheedu bilaha dambe maxaa la yiraahdaa loo qiimeyn doona hadduu ilaahay ka raali noqdo. waayahay waxaa noo tiraahdaa $10 oo nadiif u bixiyey dheh. 10kii aan qornay waa kaas way dhamaystiran tahay. ardaygan wax kale uma baahna, waxna uma yaaliin, waxna maxaa la yiraahdaa laguma laha, way dhamaystiran tahay. waayahay arday kalaan diiwaan gelin doonaa. marka intan magac ku qorno waxaan rabnaa inuu sidoo kale halkan isaga uu siiyo id card qofkaasi, amaba boona numberka inuu isaga qoraa laga rabaa. waxaan diiwaan gelinaynaa hadda haddii uu ilaahay yiraahdo caaisha axmed maxamed oo kale, caaisha axmed maxamed oo kale. waxaa ka mas-uula dabcan axmed maxamed baa ka mas-uul ah, axmed maxamed baa ka mas-uul ah. lambarkiisa waxaa iska tiraahdaa 999 waxaad doontaa ama 00. fasalka waxay dhigataa aan dhahaynaa waxaan baroobeynaa hadda inoo dhiman lixaad inoo dhiman shanaad. fasalka lixaad oo kale, lixaad maxaa laga rabaa $12 laga rabaa. inta muxuu kusoo qoray
$12 ardaygan ku dhimana waata intaa noo cadaynaysa. waayo ardaygan 12kii waa laga qaaday dheh, muxuuna dhihi doonaa waa ka qaadnay, muxuu yidhi way dhammaystiran tahay. 12 lagama qaadin, waxaa laga qaaday $20 laga qaaday ardaygan oo kale. tusaale ahaan muxuu yidhi $8 baaqi u ah ardaygan. way u taallaa soo ma aragtid, waa lacag u taallaa. ama waxaad tirahdaa sidoo kale lacag kayru dhiibay oo kale $10 uu bixiyay ninkan, waa maxay, waa lacag ku dhiman labada gabadha. idan marka lacag baa ku dhiman haloo doono, saasaan dhihi lahay. qof kale ku daraynaa intaanan kusoo gabagabayn doonaa insha allah. waxaan kusoo daraynaa xamdi cali, waxaa ka mas-uul ah cali baa ka mas-uul ah, lamarkiisu waa 666 oo kale. waxaan dhihi doonaa fasalka ay dhigato waa 5aad, isagoo keliya noo haray. fasalka 5aad ay dhigataa. fasalka 5aad $12 waa looga baahan yahay. 12kii waa ay bixisay oo waa nadiif gabadhani. idan marka way dhammaystiran tahay. marka waa dabcan waa program aad u fudud weeye, waa excel sa aragtaan. insha allah cidii u baahanna waa la soo xiriiri kartaa. cashiro noocan oo kale ahna ayagoo baxayo oo sida loo sameeyo waxyaabahaas tutorial aan ka samayn doonana duubistooda noo socoto. hadda kan waa iska hordhac, insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waanu soo gudbin doonaa. billahi tawfiiq.